gabadha diinta islaamka barata iyo gabadha aan baran waa in la kala gartaa laakiin adoo kitaabkii quraanka ay lagu barayo oo subax kasta xadiiska lagu akhrinayo haddii aan laga garanayn gabdhaha aan xadiiska baran taas waa dhibaato nagu soo noqonaysa waxaan idin dardaarmayaa naftayda iyo naftiinaba cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waxa weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo taqwadiisa xasuuso xaytama kuntum meel allaali meeshaad ku sugan tahay ma ahan markii macadka kali la joogo in kitaabkii wax weeyaan la akhrisanayo oo xijaabkii la qabo laakiin markaad suuqa aadaysid markaad dukaamada aadaysid markaad meelaha u baxaysid gabadha diinta islaamka barata iyo gabadha aan baran waa in la kala gartaa laakiin adoo kitaabkii quraanka ay lagu barayo oo subax kasta xadiiska lagu akhrinayo haddii aan laga garanayn gabdhaha aan xadiiska baran taas waa dhibaato nagu soo noqonaysa marka gabdhaha sharafka iyo qiimaha badan oo halkan fadhiya waxaan malaynayaa wacdi umiina baahnine kuwa suuqa marayo oo wax weeyaan aan cilmiga baran ba waxay inooga baahan yihiin inteenaan mas'uuliyad inaga saarantaa inaan cilmiga ku wacdino waxaan soo baranay u sheegno maadaama inaga naloo sheegay oo macallimiinteena bareen oo hanuuniyeen waxa la rabaa inta nala baray in aan gudbino oo gabdhaha u gudbino maanta haddii lagu soo baray xadiiska la dhaho كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان lagu soo baro u sheeg gabar subhanallahi walhamdulillah kali hadii matqana ay ku celceliso subax kaste tawa ogta ajarka ay leedahay baad salaad markii subaxii la akhristo iyo markastaba oo salaad kasta aad tukatid wanaaga ay leedahay waa garanaynaa marka ka kali hadaa u gudbisid rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri balqooni walaw aaya iga gaarsiyo uu yiri umada hal ayadna ha ahaatee gabadha inta gudbisa ajar baa ugu jira xasanaad baa ugu jira akhri adduun waa kulli iimaanaysa marka aad iyo aad baa u mahadsan